السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوتيوب كان داونيسا waa Elvis Family Channel iyo anigoo boqorada wada jecleeda ma dhahaa waa macquul ma ii xisteen laakiin zaydan kugu xiisay hooy macaan ana meesha kala wareegay ana jeclaystay inaan soo fariisto faanteen ana waxaan dhahay hooy ana maxaa dhihi jiray waxaad u duuban rabaa dhahay bas fadhiga xirtay wallahi waxa ku dhahay waxa inaa youtube-keeda duuba ilaa hadda ma oga ku dhahay wallahi tartiibta waxaa iska jeclaystay inaan jawi degan tartiib aan youtube-ka duubo wayba iga kiin qabataba inaan soo ag fariistaba keesheen okay waayahay maqlay waa ka helay dhahdeen okay maanta inta waxaa usoo fariistay inaan idin faa'iideeyo waxyaabo badan ilfisteedii waxaa uga barateen duco soma markii wax idin dhameyso ducooyinka ugu daba xijinayno kaan miga helaysaan idinka kaga fadhiya duco isoo duceeyo horta marka hore taasna waa xujada labaadba okay waayahay taasna waa iska kaftan maanta waxaa jeclaystay inaan wax badan idin faa'iideeyo oon idin sharaxo kula hada sharaxayga qaadanaysaan okay waxaa jiro maamooyin aad u wanaagsan oo hooyadii macaan ku xiran maasha allah gabdho sidoo kaleeto ayagana oo hooy macaan ku xiran wallahi bilaa waxaa ku dhahay dadka ilaahay subxaana watacaala shantan farood ilaahay ma wada siinin ma fahamtid ummadana waa sidaas oo kale wallahi bilaa qaar wanaagsan iyo qaar xun arkay sidaan 25 jirka igu tilmaama anigoo 15 jir ah waqti dhashana 20 mayba gaaran baa la yaab ilaa haddan ma fahamtid ilaa hadda 15 jira iyadoo wax iga mooynaad ilaa 7 sano 6 sano maxaa dhihi jiray 5 sano meelahaas iga weyntaa okay marka caadis ka dhiga ani lafta booda iyo koris sida waa la ii koriye ha idin muuqan ma fahanteen okay waa inta hadalkeen kaga xiraaya maanta xara inaan wax idin faa'iideeyo hooyana awal hore idin kugu faa'iideysay sidaan jeclahay anigana inaan kugu dararabaa kulay waxaan dhahay youtube-ka mastiwa waa galayaan dhahay moogtaa annaga ku qasbanaatay inaan idin faa'iideeyo waan ku qasbanahay wixii faa'iide ah waxaan rabaa inaan idin kaga faa'iideeyo alaabtan shifaa saa hore u taqaanaanbo waa maxaa la dhihi jiray shaafi yaa rabaa shaafi shifaa ee keentay shaafi waa ujeediina u malaynaya shaafi shamba iyo waxay wadataa treatment waa kana shambadii iyo treatmentigii iyo saliiddi waaye ma fahanteen iyo kareenkii oo wejiga asigana shaafi horaab u taqaaneenba kareenka haaraha waaye ma hayno okay waayahay kareenka shaafi shambada shaafi watana the best ani waxa iyada ahayn wallahi ma isticmaalo marka u horeyso tinta shambada ku dhaqaysaa ma fahanteen yaa tintaadana markaad mar walba aad wax ku sameynaysid damasti waxa ay mutaqaanaan inaad salka ku xoqdaan tinta okay asaas salka ugu masaajeysaan waxoo de ma diyaal isku xoqanayana maaya tartiib si degan waa inaad saas ugu masaajeysaa saas waa inaad u masaajeysaa salka dad kale waxaa arkaya dad oo tinta meelahan qadaadka isaga dhegdhego oo marka ay shaleynayaan kala jaf siinaayo tinta isgoynaayo dadka kaleeto oo ayagana aflaaqada tinta kale maxaa la dhihi jiray markaad aragto tintaada inay gadaal isaga dhigayso aflaaqana ay leedahay tinta waa la jaraa daryeela tinta dee yaa rabbi yaa raxmaan shaambadan the first one shaambadana ku dhaqaysaa markaa ku dhaqdo and then treatmentigana qaadanaysaa ma fahamtay treatmentigan waa ku joogee bacaa madaxa la geline ama daqiiqadaa ku joogay 30 minute ilaa adii 30 minute ama 1 hour inta kugu filan adii aad ku joogaysaa ma fahamtay waa marinaysaa madaxaas ugu masaajeynaysaa sida meelaha dinta timaha isaga dhigdhigaan oo dhan asas ugu masaajeynay tintaas si fiican u dhexgelinay bacaa ku daboolay bacda madaxa gashta kullee waa wada garanaysaan sooma bacdaas madaxa gashanaysaan wallahi waxaa ku dhahay natiijadeeda aniga iga soo wareysta ma fahanteen kusana isticmaalo inkastoo qof walba ee daryeelka gacantiisa ay ku xiran tahay waxa natiijana hal maalin iyo 2 maalin iyo Soomaaliya daanaay waxaa sugnaaday waxaan dhahaynaa waxaan ku ogaanaynaa 1 isbuuc 1 week inaan ku ogaano ama 3 days inaan ku ogaano rabnaa aa leedihiin
marka hore waa inaa iyada dhan dhammaysaa kadib wax haddaad natiijo aad ka arki weysid anigan ku hor fadhiyo hadhow ii qabso xataa qof kale aadin anigaygan ii qabso ilfis lambarkeeda meeshuu ku qorayaa amal beenay noo sheegtay kusoo wada qora okay ama commentiga hadda baashan aan duubayo mustaqbalka kusoo qora insha allah mustaqbalka dhow fog maaha ya mustaqbalka dhow waa kusoo qora insha allah saliidda waa inaad dhammaysataa shaambada anden sidoo kale iyadana ma kala haraan ma fahantay habeenkii markaa seexanaysid waa inaad ku shubtaa meel kasto xataa dad waxaa jira timaha ay ka go-een meelo qaar ay ka go-een dad qaar ilaa ka goyso xataa isha way u fiican tahay way u wacan tahay maxaan dhihi jiray dad hadda qaar badankooda sida anoo kaleeto tinta ilaa ay gashay il waan isku yara dareen ma fahanteen bahashan isha way u wacan tahay daaween leedahay waa caafimaad waa ifahanteena filaya kana waaba shaafi waa wada gasaysaan badankiina inta ilfis ku wada xiran oo dhan walaahi maamooyin waxaa arkaya aad oo la tacajabay maasha allah maamooyinkaasoo kale ma iska wada noqdaan talo ummadda dadka ilaahay isku mid kama dhigidee maxaa sameynaa okay waayahay ha laga gaaro ha moogaanin ilfis family channel waxyaabaha ay idin keento oo ah shaafi iyo iftiin dumar waxyaabaha ilfis idin keento waa hubtaan goos maxaa dheh ila waa qof dhan oo diinta rabbi aaminsan qowl beenana aana ku hadlaynin waxyaabo beena dadkana aana ku dhaceen ma fahanteen lacag xaaraanna maquudataa waldhaaba iyada dhan sideed ma fahanteen iyada dhana xalaal lagu soo koriya alxamdulilah ummadda dhan islaamka xalaala lagu wada koriya bad dad waxaa jiro beenta maquud u tahay sida hadda dad badan oo aan ku arkay social media waxyaabaas ma fiicna xaaraam waa iska daayan tan kale iftiin dumar oo faceka iyo iftiin dumar oo badhiga waa ilaahi subxaana watacaala ha noo deysto waalidkeena because si waxay noo koriyeen oo idinka waa la socotaan horena waa la idinkugu sheegay ilaahi subxaana watacaala hooyaday macaan ha ii deysto oo qof aad iyo aad u qalbi wanaagsan oo qof aanan kibir badnayn ilaahay ha ii deysto hooyo kastoo soomaaliyeed ilaahi subxaana watacaala ha noo deysto waxaa idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu